waaxda kalluumaysiga waxay sanado badan ahayd mid ay ku xoogan yihiin ragga, hase yeeshee taasi ayaa hadda isbeddelaysa. dhowrkii sane ee u dambeeyey waxaa xoogaystay ka shaqaynta haweenka ee kalluumaysiga, tan oo qayb ka ah dadaalka kor loogu qaadaya kaalinta haweenka ee siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha Soomaaliya. haweenka Soomaaliyeed oo ah 56% dadweynaha Soomaaliya ayaa si xoog leh uga shaqeeya kalluumaysiga magaalooyinka dalka oo dhan sida Muqdisho, Kismaayo, Boosaaso iyo Berbera. Sahra Cali Yuusuf oo ah 41 jir, hooyada 7 caruur ah, waxay ganacsiga kalluunka ka shaqaynaysay 10kii sane ee u dambeeyey. halkan ayay subax kasta kalluumaysatada ragga ah kala wareegtaa kalluunka ay badda ka soo jilaabtaan, kadibna waxay ka sii iibisaa suuqa kalluunka ee Xamarweyne. Waxaan iga dhigan tahay inaan badayda ka shaqeysto oo subax intaan soo kala halka intaan istaago wixii badayda ka soo baxaa aan la baxo, qayb dibto, qayb iibsado. waa Ilaahay mahadin mactarab weeyaan. siyaasadaha lagu horumarinayo kaalinta haweenka ee kalluumaysiga waa mid looga gol leeyahay gaarista haweenka ee isku filnaansho dhaqaale. bishii Sebteembar ee 2024 waxaa Muqdisho lagu qabtay bandhig looga hadlayay fursadaha iyo caqabadaha haweenka ee kalluumaysiga. iskaashatada haweenka kalluumaysiga oo ay ku midaysan yihiin 500 oo haween ah ayaa dalka oo dhan ka shaqeeya awoodsiinta haweenka iyo u qareemidooda. lacag isku darsanay, doomanaan samaysanay, doomanaan leenahay ilaa ceel macaan ilaa cadal ay ka shaqeeyaan. يعني إنا هرمر جارنا وسومالي هذا رجع هواك ما تحجريان وسومالي لكن أنا دور أذقنا وهوينا أنا المين ككرسنا. دولة الفدرالية الصومالية oo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ayaa iyaduna dejisay siyaasad lagu taageeraya haweenka ku jira kalluumaysiga. dhulkeena waxaa ka weyn baddeenu leenahay, waxaana ka badan wax badan kheyraadka iyada ku jiro midka bannaanka yaal. si markaan u isticmaalno waxaa qasab noqotay hooyada oo asaas u ah nolosha dadka Soomaaliyeed ee adduunka oo dhan in ay imaato garaad ahaan iyo tababar ahaan inay fahamto waxaas in laga faa'iideysto. taageeridda fursadaha haweenka waxay adkeynaysaa awoodsiintooda iyo in loo sinaado qayb kasta oo muhiimka u ah bulshada.